xarunta dalka looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya waxa mardhow ku soo dhamaaday kulan u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday muddada iska sii joogo Hirshabeelle ee Cali Gudlaawe Xuseen. Kulanka ayaa ku saabsanaa arrimo badan oo la xiriira doorashada Hirshabeelle iyo siyaasadda guud ee markaasi ay Villa Soomaaliya ka leedahay Hirshabeelle. wararka hordhaca ah ee aynu ku helino kulankaas xogaha la xiriiro ayaan doonaynaa inaan muuqaalkan idinkugu soo gudbino. soo dhawaada muuqaalkana sii gudbiya waa mahadsantihiin. maamul goboleedka Galmudug doorashadiisii ayaa gabagaba ku dhow waxaana si habsami leh u socda olole weyn oo ay xisbiyadu ka sameynayaan deegaanada iyo degmooyinka Galmudug. musharaxa u sharaxan xisbiga JSB ee talada haya Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq ayaana ah ninka loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha Galmudug. ha yeeshee waxa baratan loogu jira isla markaana xaaladiisu aysan weli dhan u dhicin madaxweynaha qofka ka noqon doono Hirshabeelle oo baratan iyo orotan iyo fadhi xumays iyo shirar isdaba joog ah ay markaasi hoteelada iyo goobaha la fadhiyo iyo waliba Villa Soomaaliya si isdaba joog ah ay u sameynayaan siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay noqdaan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle. madaxweynihii hore u joogay meesha Cali Gudlaawe Xuseen oo ah isagu ninka ku suntan maamul xumadii abid ugu xumeyd ee Soomara ama laga diiwaan geliyo nin madaxweyne ka ah maamul goboleed sida Hirshabeelle ah ayaa isagu kamid ah dadka raadinaya ama u ordaya in uu mar kale ku soo laabto xilka maamulka Hirshabeelle. madaxweynahan oo aan la caleemo saarin 6 sano ee uu halkaasi joogo isla markaana aan deegaanada uu ka arrimiyo inta ugu badan yahay nin laga mucaaradsan yahay ama laga soo horjeedo ayaa mar kale waxa uu rajaynayaa in xilkaasi lagu soo celiyo si markan loo caleemo saaro. Villa Soomaaliya ayuu maanta ama galabta waxa uu shir kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markaasi ka rajaynaya in markan xisbiga JSB ee uu hogaamiyo madaxweynaha qaranku uu u xil saarto ama uu u xusho inuu noqdo musharaxa JSB ee Hirshabeelle. ha yeeshee waa laga diiday arrintaasi sida xogaha hordhac ah aynu ku helayno. kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday isafgarad la'aan. waxyaabaha inta badan laga hadlay waxa kamid ah in Cali Gudlaawe lagu qanciyo in uu meesha isaga tago oo uu maro wadadii uu maray Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo hore u ahaa hogaamiyaha Galmudug kaasoo isagu wax badan dadkiisa u soo qabtay horumar badan oo lagu faani karana ka sameeyay Galmudug si ka duwan Cali Gudlaawe Xuseen Hirshabeelle inta uu ka sameeyay. Cali Gudlaawe ayaa markaasi dalbaday hadii uusan helaynin kalsoonida Villa Soomaaliya ee ku aadan in loo xusho ama loo xil saaro oo loo sharaxo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee ku tartamaya kursigaasi ee ay tahay in uu ka tanaasulo in uu mar kale u soo tartamo in uu dalbaday lacago waali ah. hase yeeshee waxaanu xogaha ku helaynaa in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu arrintaasi ka biyo diiday ayna tahay mid aan macquul ahayn. ha yeeshee arrinta la isku hayo ayaa waxay tahay in magaalada Jowhar uu isku dayayo Cali Gudlaawe inuu ka sameeyo carqaladeyn doorashada la rajaynayo in bisha soo socota ay ka dhacdo. taa bedelkeedana xujo waxa uu ku xiray hadii uu halkaasi ka degayo inuu qaato lacag waali ah oo tiradeeda lagu sheegay inay gaarayso 10 milyan oo dollar halka shuruudaha uu wato uu ku daray in tira xildhibaano ah ama tira shakhsiyaad isaga u dhow ah loo siiyo kuraasta xildhibaanada ama kuraasta golaha wakiilada ee maamul goboleedka. tiyo aan ognahay in golaha wakiilada lagu soo baxayo cod bixin dadweynuhu ay u codeynayaan shakhsiyaadka ay dooranayaan. Villa Soomaaliya ayaa damacaasi ka biyo diiday bedelkeedana waxaa loo ogolaaday in doorashadu ay tahay mid furan hadii uu doonayo in uu tartamana xisbi
isaga u gaar ah ama axsaabta kale ee dalka ka jirto xisbi kamid ah musharax uu ka soo noqdo kuna tartamo kursiga waa haddii uu rabo inuu tartamo hase yeeshee aan laga yeelaynin in uu carqaladeyn gaar ah uu sameeyo taa oo hore looga diiday madaxweynihii hore u hogaamin jiray maamulka koonfur galbeed cabdixasiis laftagareen. siyaasiyiin dhowr ah oo kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa u hanqaltaagaya in ay noqdaan madaxweynaha hirshabeelle ha yeeshee siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa ah kuwa ugu badan ee iyagu raadinaya maamul goboleedkan kursigiisa ugu sarreeya iyagoo markaasi laabta ku haysta ama fursadda ugu badan oo ay haystaan ay tahay in sanadkan ay xaq u leeyihiin in ay hogaamiyaan maamul goboleedkan hirshabeelle maadaama 6 sano ee lasoo dhaafay madaxweynaha iyo caasimaduba gobolka kale ay jireen oo markaasi ay tahay markan in xuquuqdooda reer hiiraan qaar ka mid ah dib loogu soo celiyo. wixii ka soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kula socon doontaan insha Allah.